madaxweynaha dowladda Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowladda Hirshabelle. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu horkacayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle, saraakiisha ciidamada, maamulka gobolka iyo kan degmada, barbaarta gaashaaman iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. soo dhaweynta madaxweynaha kadib waxaa loo soo galbiyay aqalka madaxtooyada Hirshabelle waxaana warbaahinta la hadlay Daawud Xaaji Ciro kaas oo ka warbixiyay intii uu madaxweynaha ku sugnaa magaalada Muqdisho iyo kulamadii uu la soo qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. maanta madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle caasimadda Jowhar waxaana garoonka diyaaradaha maxamed dheere magaalada Jowhar ku soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowladda Hirshabelle iyo wasiirro mas'uuliyiin kala duwan iyo bulshooyinka ku nool magaaladan Jowhar. runtii madaxweynaha waxa uu waayahanba socdaal uu ku joogay magaalada Muqdisho waxa uuna halkaasi kulamo kala duwan oo muhiim ah oo kula soo qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya. runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulamadaas hadda looga hadlayeen waxay ahaayeen annagoo og dadkeenu inay haystaan dhibaatooyin badan oo la xiriira abaaraha in dadka ku nool deegaanada Hirshabelle ay la daaladhacaya abaaraha loogu sameyn lahaa gurmad degdeg ah annagoo og in dadkeenu runtii abaaruhu ay farabaan ay ku hayaan iyo biyo la'aan baasanna ay ka jiraan dhulka miyiga ah ee deegaanada Hirshabelle. waxaa kale oo uu soo hadal qaaday afayeenka dowladda Hirshabelle Daawud Xaaji Ciro inay socdaan howlgallo lagu ciribtirayo cadawga shacabka ah ee Al-Shabaab isagoo carabka ku dhuftay howlgallada ka socda Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellaha Dhexe. sidoo kale madaxweynaha dowladda Hirshabelle muddadii uu magaalada Muqdisho joogay kulamada madaxweynaha jamhuuriyadda ula soo qaatay waxaa ka mid ahayd oo looga hadlay sidii deegaanada Hirshabelle kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada ku haya ay dadkeena mar walba qarxinaya caqabada ugu weyn ee deegaanada ka jirta ay tahay Al-Shabaab sidii la isaga kaashan lahaa in deegaanada Hirshabelle looga sifeeyo kooxaha nabadiidka ah sidaad ogtahayna haddaba waxaa bilowday dhaqdhaqaaq badan oo la xiriira la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah oo runtii dhibaato ba'an ku haya deegaanadeena gobolka Hiiraan Al-Shabaab waa lagala dagaalamayaa halka Shabeellada Dhexana deegaanada dhaca dhinaca cadalana uu ka socdo howlgallo xoogan oo looga hortagayo kooxaha nabadiidka ah ee Al-Shabaab insha Allah meelaha kalena waa ay ka bilaaban doonaan insha Allah. Cabdinaasir Socdaal Hirshabelle TV Jowhar.